الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله إلهي بانكم هدينا صلاة إنك سوقي قولي جماعة runtii waan soo ziyaaranay uuna waxaan idhi bal sheekha iyo dadka musalliinta xaafadan degan intaana duufin soo salaama haddana ma aragtaan inaan sii dardaaranno oo isbaraarujinno oo isku nasteexayno oo diinteenna macaan bayna faraysa salaada duhur ee jamaca la soo tukanana dee allah inaga aqbalo camalka inaad la timaado waa dadaal inaad ku dadaasho camalkaad la timaado in laga aqbalana iyaduna waa dadaal labaad oo kale weeyaan oo dadkii wanaagsanaaye naga horeeyay inay camalka saalixa la yimaadaan waxay kaga dadaal badnaayeen camalka ay la yimaadeen haddana in laga aqbalo إلى عملك أد كنت عبتي أو أنا لقى أقبل يذا لفتيق وخسارة وين ويان. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما آيات زمن كي دنبعدتك مسلمين تو آدي وصوبتين ضد بدن عمر بن الخطاب أنا سو قاعدين أي ويل كيسي ابن عمر أي سو قاعدين آيا أمانتي بمركا كلا دول لعين ابن عمر ويرادن أدوغو نعين كاسا تهي أبهان نعين كاسو أها أنت كذا وأبوك كان كذا وكذا مركاسو كيوري وحا أمانة أنيقا يقلدوا الدعيسان وحا كغفر حد بنا لها بو يوري لبرك عضوضوس أنتو كذي أولا يقا أقبلي أون أقادو الله إيشيغو أيا وحا صوردن بأن كغفر حد بنا كغفر حلها بودي كغفر حد بدن لها عملك إن الله تمادا وددل وإلهي وقفك وافجيه لكن عملك إن لقى أقبلانا ددالك لا أباهنتهي إبراهيم الخليل عليه السلام يا إسماعيل مركي بيتك إلهي أي دسيين وحي إلهي ويديسنيين قبوليد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنما يتقبل الله من المتقين waxay ku dadaalayeen camalka in laga aqbalo asbaabta camalka lagu aqbalana waxa kamid ah waa Allah ka cabsiga inuu qofku noqdo qof Ilaahay ka baqaya oo taqwa leh oo ikhlaas leh ikhlaaskuna waxa weeyaan waa seeska dhan ee diinteena islaamku ay ku dhisan tahay oo camalka saalix la timiday haddaad sadaqad dhiibayso haddaad soomayso haddaad quraan akhrinayso haddaad diin baranayso haddaad diidan dadka aad barayso haddaad imaam tahay haddaad ma'muum tahay haddaad mufassir tahay haddaad daaci tahay camalkaaga in laga aqbalaa waxa u shardiya bay culimmadu yidhaahdaan waa ikhlaas iyo cilmiga ikhlaasku baa la yidhi waa qabuululcamal camalka in laga aqbala ikhlaaska u shardiya cilmiguna waa sixatulcamal camalkaagu inuu sax noqdaa waxa u shardiya inaad camalkanaad qabanayso aqoon aad u yeelataa oo salaadii baa labadaa u baahan oo dikrigii baa labadaa u baahan oo ducadii baa labadaa u baahan oo soonkii baa labadaa u baahan oo xajkii baa labadaa u baahan markaad camalka saalixa aad qabanayso ilaahay dartii waa inaad u niyootaa waxaan ilaahay inaad ajar kaga helayso sixada camalkuna wuxuu camalku sax ku noqonayaa waa markaad culummada aad ku xidhan tahayd weydiinaysid kayfiyadda camalka hal camal oo saalixo ilaahay kaa aqbalay ayaa adduunka wax u dhigmaba la helaynba waa kii nabigeenu lahaa sal alla alay slam innama alacmaalu binniyaat camal walba waa niyadda waxuu ka unkamayo xadiidkaasi culummada musanifiinta kitaab kastay qoraan xadiiskaasay uga dhigaan bilow bidaayo uga dhigaan haddaanan camalkan ikhlaas aanan lagu qabanin ma soconayo xataa quslul-janaaba janaabada markaad ka meedhanaysid bay culimmadu ku leeyihiin arkaanteedu waa labo النية
وتعميم البدن بالماء إن النيوتا إن غسل الجنابة أتكمل نيسين هدانا النيونين كامل من ميسا بكليهن يجر كاغا إن بيها كعم ممتاء ملو البقات قرسيسا مركا إخلاص الله ينسيه مخلصين الله ينقدوا الناس موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملون والعاملون مغرورون إلا المخلصون والمخلصون على وجل حتى يعلموا ما يختم بهم عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه erayadii siibay ka mid ahayd dadka oo dhan way dhinsan yihiin ilaa culimada un baa ka nool buu yidhi dadka cilmiga sharciga yaqaana dadka un baa dad oo nool buu yidhi waxa kaloo dhan waa dad dhintay la mid yihiin buu yidhi culimaduna iyaga laftigooga cilmiga ayaa sakhraamiyay buu yidhi ilaa kuwa cilmiga ay barteen ku camal falaya mooyaane kuwa cilmiga ku camal fala ee diinta ku dhaqmana way degan yihiin buuriyo ka laftigoogu way degan yihiin oo amalka ayaa dagaya illa al-mukhlisun kuwa mukhlisiinta amalka ilaahay u barax tirta mooyaane wal mukhlisuna ala wajlin dadka mukhlisuuntuna cabsiba ilaahay ku caabudaan ila ay ogaanayaan khaatimadoodu waxay ku dambeynayso inta hore oo dhan waxay ku jiraan cabsibay ku jiraan nin caalim ahaayo saajidkiisa markaan ku tukado salaad kasta marka uu ka baxo ayuu ku ducaysan jiray allahumma inna nas'aluka husna al-khatima wash-shahada 'inda al-maut wa na'udhu bika min su'i al-khatima markaasaan nin sheekhan weydiyo nin sheekha ducadaas way ku badan tahay wuxuu 65 sano ayuu duruusta masaajida ka mariyaa maalina ducada kama taga baa la yidhi isagoo kitaabkii bukhaariga habeenkii dhameeyay oo ardaydiisina kala ballamay tirmidiga inuu u bilaabi doono usbuuca dambe sunnadiina gurigiisa ku soo sunnaystay fajarka fadaja ala shiqihi al-ayman markaasuu sidii sunnadu ahayd buu dhinaca midigta u yar jiibsaday way ka raacday naftii 65 sanana wuxuu ku ducaysanayay ilaahu khaatimada ii wanaaji ilaahay khaatimada hanoo hagaajiyo su'ul khaatima والشيء كلي علماء الربانيين تو أي كبق جرين ذاتك إلهي كحنا أمرك إخلاصك أيام كود ذلك إن عمل كستون قبنا إنه أنا إخلاص قبنا إخلاصك عبادة كلي مقلو نبي صلى الله عليه وسلم أمديس حق الدين تنا أكدسي حق الدين مدنا أكدسي حق الدين تصدو نبي أمديس أكدسي عمل كستي قبنا يان إن إلهي درتي وقبتان وإلهي رضيه سيكون أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث القدس وكيلا هيلها أنا عمل ليلة شريك إلا إي شريك يلو عدك لليلة وذاجيو وعدك لشريك أنا ليلة دقبا إلى هيري غني بانكا هيا وانكا كافتوما هيبا إلى هيري نكا عمل سوقبتي عملك أدونك أنتو جوغ عدك إلى وذاجيي إساقي شركي سوان اسكنا فابا إلى هيري بركة إخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا لما أمر دتك إلا وحال أمري إن عبادة إلهي جل وعلا أي أبر احترام حقا سوى حق دينتي حقا ضد لماذا النبي أمدي سأكدسو وحاو ضد لماذا النبي أمدي أكدسي وحويان ولالك هداد وناق أدو سمينيسد بديل إنو وناق أدو سميسي وناق لماذا إنو كو سميو هسو ديغان ماشا waxaad soo dhigataa buu nabigu yiri ninka wanaag inii sameeyo buu nabigu yiri waxaad ugu abaal celisaan oo abaalkiisa aad ku gudaan buu nabigu yiri inaad u ducaysaan oo tiraadaan jazaakallahu khayr badil hasugin waxbaanu qabtay waa inuu wax lamida ii qabtaa diinta islaamku ma qabta taas waxana siiyay abaal baan ku leeyahay abaalkaygu waa inuu soo celiyaa may diinta islaamku waxay qabtaa marka horeed walaalka ihsaan aad u sameeyaysidba waa inaad ugu sameeysaa alla dartii ilaahay dartii waxa ugu sameeyay
haddaad janaasadiisa raacaysa ilaahay dartii u raac, haddaad dayn aad amaahinaysa ilaahay dartii u amaahi, haddaad wax siinaysa ilaahay dartii u sii, haddaad xoogaaga ku taageeraysa ilaahay dartii ugu taageer, haddaad cilmi baraysa ilaahay dartii u bar, haddaad caawinaysa ilaahay dartii u caawi, haddaad garab u noqonaysa ilaahay dartii garab ugu noqo, haddaad talo ummadeed qabanaysa wuxuu nebigu saxaabadiisa ka dhaadhiciyey ilaahay dartiina dadka ugu shaqeeyaan. dowla nabawiya la yidhaah buu nebigu madiinat almunawar uu ka dhisay. dowla nabawiya sees wuxuu uga dhigay ikhlaas. halkay adduunyada ay ku jirtaa maanta ay ka jirtaa ama ay dhici kartaa dowlad min madaxeegii ilaa mijaheegii kii qashinka dariiqa ka qaadayay uu leeyahay anu ilaahay dartii baan ummadda ugu shaqaynoo cidna mushqaayad ka dooni maayo? ma jirtaa dowlad caynkaas? baarkaasaad leedihin horumar baa la gaadho gaaladaa horumartay. xaggee horumar ka mareen? laba maalmood hadday shaqaalahooga bishaarka dowladda ay ka jaraan, shaqaaluhu waddanka dhanba saasay u rogayaan. 10 maalmood hadday bishaarku ka dib dhaco way rogayaan waddannadooda. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dowla islaamiya wuxuu dhisay min ka madaxa ilaa ka mijaha ee qashinka dariiqa ka qaadaya, ka dhirta dariiqa ka baxday ka goynaya, ka maaragtaane dawaynaya, uu yidhaahdo ilaahay dartiiba waxaa kugu qabtay iska soco, ilaahay baan ajar ka doonayaa. dowla nabawiya kontomeeyo sanay dowladdaasi sidaa ku dhisnayd ilaa khilaafadii mucaawiye laga gaadho baa la yidhi dowla nabawiya ilaa mucaawiye laga gaadho, ama ninkii la odhan jiray marwaan alximaar, waxaan u jeedaa mucaawiya ibn abi sufyaan laga gaadho, halkaa dowla nabawiya isku ku joogsatay yidhahdeen culammadu. dowla mulukiya markaa ka bilaabaysa mucaawiye laga bilaabo ilaa ninka la odhan jiray marwaan alximaar. daedna waxaa ku xigta dowla jabaruutiya oo iyaduna bilaami doonto khilaafadii dowlatu lamawiya oo dowla cabbaasiya bilaami doonto. dowla nabawiya nebigu waxuu ku dhisay min amiirka mu'miniinta ee waddanka ugu sarreeya inuu aaminsan yahay shaqadaa uu ummadda u hayo inuu ilaahay dartii ugu shaqeeyo mooyaane reerkaaga iyo adigaa ku noolaanaya meesha ma soo dhiganba. ka qashinka qaadaya buu nebigu yidhi imaadat aladaa can ariiqi sadaqa. dariiqa aad maraysaan dhibaatada taallay, imaadat aladaa dhibta taallay oo laga qaado waa sadaqa buu nebigu. yaa ayuha annaas, madiinuu nebigu soo gaadhay sal ly slam, dadkii buu nebigu la hadlay. hadalkuu kula hadlay ma taqaanaa? yaa ayuha annaas afshu salaam wa atcimu aطacaam wasilu اlarxaam wasalluu biاlleyli wاnnaasu niyaam tadkhulu اljannata bisalaam cuudu lmariid fakku lcaani atcimu اljaa'ica. waa sharcigii dowladda islaamka madiine ay ku dhisnayd. talaanta faafiya, masaakiinta cuntaysiya. hal qofoo faqiiroo sidaa waa laga waayay magaalada madiina. xadiiskaasaa lagu camal falayaa. halka maanta muslimiintu balaayin lacaga baananka ay ku haystaan, qaar qaraabadoodana gaajo ugu dhimanayaan ama qaraabadiisu ay dawarsanayso. magaalada madiina nin xagga dambe wax dhiganaya ma jirayn. waxaa maanta soo gala way wada cunayeen sawiya. waxaa laga waayay magaalada madiina ayadoo reer madiine xadiidka nebiga ay ku dhaqmayaan. warkiina kii ka gaajoonaya cuntaysiiya, ka niga xanuunsanna siyaarta, ka xidhanna buu nebigu yidhi soo daaya. waxay dhacday magaaladii madiine oo dhacday in qof miskiina laga waayo, qof gaajoonaya in laga waayo, waayo waxbaa la wada cunayaa. in qof maaragtaane hadduu qof ka xanuunsadana magaalada madiine 40,000 ee qoysee deggan ay soo wada siyaarato. ninka magaalada madiine qariibku ee ku cusub markuu arko ninkan waxa khalqi soo buuqanaya, waxau u malaynayay dadka magaalada madiine ku nool oo dhan inay qaraabadiisii wada yihiin. qaraabanimo kuma soo siyaaranayaane xadiidka nebi maxamed camalfalay ku camalfalayaan ayay magaalada madiine dadku ku soo buuqanayaan. dadnimadoodii buu dhiso. wuxuu ku dhisay ninka wanaag inii sameeya waxaad ugu abaalguddaan inaad ugu ducaysaan maxay? jazaaka allah khayr, jazaaka allah khayr. waayo waxaad siinaysa adigu waa wax yar haddaad abaal celin lahayd ka soo qaad, laakiin waxau ilaahay siinayaase yaa ka weyn. waxay ka dhigan tahay ilaahay baan kuu baryey, haye waxa ilaahay uu ku siinayana kamaa yaliiqu bijalaalihi buu kugu siinayaa.
marka ikhlaaska Allah nasiyo ikhlaaska iyo iimaanku waa mataana bay culimadu leeyihiin iimaanku markuu biro ikhlaasku uu biraa iimaanku markuu naaqusman ikhlaasku uu naaqusmaa tow amaan Allah nasiyo ikhlaas hadaan yeelano nolosheena oo dhan baa isbedeli ikhlaas waa maxay waa waxa amalkaaga lagu aqbalayo amal hadii laga aqbalo noloshaada oo dhan baa toos nin caalim rabbaaniya ayaa ardaydiisii kamidaba biyo yiri soo qaad biyo biyihiiba u soo qaado biyihiiba ka soo daadaatay sida uga daadaatay ardayna ma helin nin iska weyn buu ayo ardayda waa weyna saas uu eego wuxuu ku yiri ilaa imika salaadaadii ma hagaagin buu ka yiri adiga wallahi biyaha ka soo daadaadanaya iyo salaadiisa maxaa isku keenaa lagu yiri sheekh wuxuu yiri salaadiisu haday maqbuulo noqon lahayd oo ilaahay aqbali lahaa xubnihiisu dhan baa noqon lahaa buu ku wadagan salaadu haday hagaagto nolosha oo dhan baa inuu hagaagayo ogaada marka salaadahan hagaajisano oo cilmigeegana culimada aan weydiino yaan xishoon ikhlaaskeegana Allah nasiyo insha Allah dhahada Allah inoo dambi dhaaf intaasaan ku soo gabagabeeyno waqti dhahira weeyaan ilaahay dambigeena ha dhaaf dambiga waalidiinteena Allah ha dhaaf maralkeena Allah ha shaafi mawtaadkeena Allah ha naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad